بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب waxaan u mahad celinayaa xarunta Mine oo isku hawshay inay qabato doodaha ku aadan horumarinta qaranka dhan kastaba ha ahaatee. runtii su'aasha la weydiiyey waa su'aal ka dhex guuxaysa qofka hadduu xildhibaan yahay hadduusan ahaynba, maxaa yeelay dhibaatada jirta ee argagixisada ayaa maanta qof walba aqalkiisa ugu gashay. qof aysan taabanin ma jirto. si guud marka dooda waxay ku saabsan tahay sida xiriiriyaha uu noo sheegay amniga qaranka iyo argagixisada. amniga waa la qeexay, walaalkay cabdixakiin ayaa qeexay. sidoo kale argagixisada runtii waa qof walba ama koox walba oo abaabulan oo mar walba ku talagala inay dadka dhibaatadiisa ay ka shaqeeyaan dhan kastaba. limaada qofka markuu waxaas qorshaysanayo waxaa ka horeeya fikir maskaxdiisa gala oo la yiraahdo xagjir. xagjirnimadana diinta kaliya ma gasho, meelo badan ay gashaa. qofka oo diinta si qalada u fahma wuxuu ku noqdaa xagjir. sidoo kale haddii uu ka dhaco heerkeediina ciidana dhanka kaleete ayuu xagjir u noqdaa. wasadayada ayay diintu ku fiican tahay, yacni shay kastana saas oo kaleeto waay. wax kasta ood xagjir ku noqoto naftaadana waa ku dhibaatayne, ummaddana waa ku dhibaatayne. tusaale ahaan lacag jacayl haddii aad ku noqoto xagjir, meel kastoo lagu geeyo corruption uunbaa ka samaynaya. corruptionka iyo hantida caamka oo layska booba xagjirnimaday ka mid tahay, idan inaan ogaano waay. marka xagjirnimada meel kastay gelaysaa. ka qoriga wata oo ku argagixinaya oo ku dhibaataynaya fikirkaas xagjirka ee qaloocanaa galay. kan markaa xafiiskiisa shaqo ugu baahato ku dhibaataynaya ee iska kaa daba wareejinaya ee jawaabkaaga baaranaya, isaguna sidoo kaleete dhanka kale ayuu xagjir u yahay. marka macnahaas weyn aan u fahamno, muslin iyo gaalna way ku jiraan dad wax argagixiya oo dhibaateeya. laakiin alxamdulilaah annaga maanta waxaan u malaynayaa ummadaha dunida ku nool kuwa waxaan ku jirnaa ugu khibradda badan leh argagixisada iyo qaababkeeda iyo dhibaatooyinkeeda iyo weliba sida loola tacaalo. waayadii dambe waxaa soo batay, waad ogtihiin, in dalal shisheeye ay Soomaaliya yimaadaan oo yidhaahdaan sida argagixisada loola dagaalamo nabara. waxaa la rabaa dhan haddaan ka liidano dhananka kaleete oo aan awoodda ka leenahay inaan iyaguna aan iftiimino. 5 sano ka hor, 10 sano ka hor, 7 sano ka hor, 8 sano ka hor, intaanoo qof intay isku timaado kuma dhiiranaynin inay argagixiso ka hadlaan, ama qof ka hadlaysa intay hor fadhiistaan ay dhegaystaan. waa la baqaaya soo maha. markii xataa lagu weydiyo la yidhaahdo argagixisada noocaas ma tahay, walaalow aniga dad ila jooga ma xaman kare iga dhaaf aa la dhihi jiray. niyahow an maalee kaa soo diray, maxaa tooshka iigu shidaysaa? dabcan ma jirto. laakiin haddana khibraddii iyo la tacaamulkeedii markay nagu bateen, maskaxdeena way ku sawiran tahay qof kasto sida loola tacaalayo. day to day waa kaas oo maskaxdeena ku sawiran oon soo wadnay aan halkan maanta soo gaaray. runtii su-aasha haddaan usoo laabto i weydiiyey walaalkay ee ah ma jiraa sharci baarlamaanka maray
oo lagula dagaalamo argagixisada si fudud maya. xukuumadda ma keentay baarlamaanka haa baarlamaankan xildhibaan ahaan haddaan ku cusbahay laakiin shaqo ahaan kuma cusbi oo 12 sano ka shaqaynayay waa la keenay baarlamaankii 9aad dabcan xildhibaanadii ku jiray qaarkood halkaan ay fadhiyaan xildhibaan Xanaf ka mid tahay laakiin waa la celiyay waxa celiyay qof kasta uu ka dharagsan yahay janankaaba hadda ka hadlayay marka istiraatiijiya aan samaysan baagna waxaana lagu dhahay dalka dibadiisa ku sameynaysiin maxaa yeelay kaligiin ma sameey kartiin waa idin la sameeyayna markii dibadda la tagana arrintii waa isbedeshay marka mar walba caqabad oo dhanka dibadda nooga timaada iyo mid kale oo gudaha ah intaba way jiraan oo hor istaagayay in sharcigaas baarlamaanka ay xukuumaddu keentay muhiimna u ahaa badqabka ummadda Soomaaliyeed naftooda iyo maalkooda iyo sharafkoodaba in oo la gudbin waayay ay socon weysay Soomaalidu waxay dhahaan dalkaanu dawlad waa rabiyaa waxaase diidan duul qarsoon duulkaas qarsoona mar walba hor taagan laakiin waxaa la rabaa maanta kadib duulkaas qarsan inaan daah intaan ka rogno sharcigaasi dibaa loo soo celin doonaa haddii la soo celiyo shacabkuna ay banaanka soo istaagaan dhan sharcigaas baarlamaanka waa inuu maraa xildhibaanada joogo ee cusub ee dhalinyarada ah ee dhibaatadaas wax ku soo bartay dhaxdeeda ku soo noolaa shaqaale dawlad ku noqday maanta xildhibaan ah si dhibka ubadkooda ay iyagu mareen aysan u marin inay iyaguna u istaagaan in sharcigaasi la baasgareeyo aniga lambar 1 aan ka ahay maxaa yeelay deegaanka aan matalo deegaanka aan matalo 12 sano 13 sano 14 sano ayaa la haystaa oo argagixisadu haysataa wiilkii markaa ku dhashay ama gabadhii ku dhalatay ayaa maanta qaangaar ah wiilkii qoray uu qaadi karaa dad uu dili karaa weligiisna muusan maqlin fikirkaas xaq jirka ah oo argagixisadu u meerinayso fikir aan ahayn maxaa yeelay deegaankaas buu joogaa asiga qofka ugu yar ee ugu roon ee fikirkaas aan qaadanina shakiya ku jiro waxay isleedahay war culimadii hore idin joogtay iyo kuwa 10 sano ala nooleedeen keesaxan qofka ugu roon oo fikirkaas uusan gelin su'aala u taagan oo jawaabteeda nooga baahan yahay marka dhammaan dadkaas maalinta la xoreeyay xataa waxay u baahan yihiin in maskaxdooda la dhaqo laga nadiifiyo fikirkaas mid quruxsan oo ka fiican lagu shubo marka waxyaabihii aan goobjoog u ahaa oo sharcigaas lagu hor istaagay waxaa ka mid ahaa sharciga inuu takrifal badan uu ku jiro oo la rabo dadka qaar in hantidooda iyo sharafkooda iyo naftooda lagu banaysto in sharcigaani adduunyadoo dhan ay iska diiday inta badan sharcigaani in muslimiinta kaliya lagu taargetsanaayo hadda baarlamaanaa tahay sharcigan waa lagu keenay wixii takrifalaho ku jiro adiga ka bixi waxaa lagu keenaa waxay yihiinba wixii kula xumaada inaad ka saarto wixii kula habboon ood isleedahay in lagu daray u baahan tahana inaad ku dartid marka insha Allah markay dawladda keento waa ku dari doonaa wixii ka dhiman wixii u baahan in laga turxaan bixiyo laga saarana waan ka saari doonaa biidnillaahi alkariim si hay'adaha ammaanka ay ugu fududaato in iyagoo sharcigaas raacaya ay istiraatiijiyo midaysan intay samaystaan qorshe howleed u kala googoostaan lagu howlgalo oo dalka loola dagaalo
argagixisada hadda jirtana waa mid ku dhisan fikir sidaan ognahay laguma ciribtiri karo qoriga caaradiisa waxaa la rabaa in culammadu ay doorkooda qaataan oo ay wacyigelin la istaagaan masaajidda iyo idaacadaha iyo telefishinada iyo doodaha noocan oo kaleeta ah oo dadka loo caddeeyo waxaas qalloocan tan saxdaana loo tilmaamo oo fikir ahaan lagula dagaalamo nimankaas sidoo kale dhaqaale ahaan in loola dagaalamo maadaama ay canshuur qaataan ka badan midka ay dowladda qaadanayso kaleete sidoo kale bulsho ahaan loola dagaalo oo bulshadu rayidku ay igana doorkooda qaataan ay bannaanka soo istaagaan qof walba oo Soomaaliya amniga dalkan iyo la dagaalanka argagixisada mas'uuliyadda ka saaran heerkee doonta ha ahaato yacni gabar uu la dhashay mid uu la sheekaystaa wiiluu saaxiib la yahay aabbihii dhalow gurigiisa u soo hoydaa hooyadiis ayaa u diyaarisa wuxuu cunaayay iyo wuxuu cabaayay yacni annaga aan farta ku fiiqno haddii farta lagu fiiqo way hagaagaysaa su-aalaha la dhiibay waxaa ku jirtay abaabulka oo beelaha oo qabiilaysan sida macawisleed oo kaleeta ani waxaan qabaa markii dal la xureynaayo nidaam haddaan lagu xureynin fawdaa la aadaya macawisley walwal badanaan ka qabaanay hadda waxaa laga yaabaa dadka qaar markay macawisley maqlaan inay u riyaaqaan ay dhahaan dad oo deegaankooda xureysanayo waaye hadda way fiican yihiin howl fiicanay haayaan nidaam aan lahayn qorayay barteen inay qaataan inuu awooddiisa u exercise kareeyo isagoon u tababarnayn oo sharci uu maraayo iyo process aysan jirin qofku owr dabar la'aan uu noqonayaa berrina dowladdii u riyaaqaysay iyo shacabkii u riyaaqaya laftirkooda oo isbaaruu dhiganayaa xabadna wuu ku soo ridaa waxaan qabaa marka aniga wax walba oo aan nidaam iyo sharci ku dhisnayn oo argagixiso lagula dagaali maago booskii argagixisada hadday ka baxdo iigaa galaya waana soo aragnaa umalaynaa tijaabooyinkaas ururo is-abaabulay oo markii dambena dowladdii ay ka dhaqaaqi weyso xabad ku riday ayaa jiro marka si gooban waxaan u leeyahay sharcigaas waa marinaynaa aniga guddiga difaacan ka mid ahay takhasuskaygana cilmiga bulshada waaye maxaa i geeyey guddiga difaaca in deegaankayga la haysto muhiimadda ugu horreyso maanta ay tahay in oo argagixisadaas lala dagaalamo qof walba markuu argagixiso maqlo dhimashaa ku soo dhacaysa waqti aan leenahay likulli ummatin ajal faidaa jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun saacaddaada mana ka hormaraysid mana ka dib dhacaysid iidaas dhexdeeda aa ku dhimanaysaa marka yaana mowt laguga cabsi gelinin qof kastaa waa dhimane laakiin waqtigiisa waay iyo sidii ilaahay ugu tala galay su-aashii ugu horreysay i weydiiyey wuxuu yihi xildhibaan sharciga ma idinka samaysaan maadaama oo hay-addii sharci dejinta ee dalka aad tihiin waa runtiis shuruucda dalka uu leeyahay qaarna baarlamaanka ayaa xuriya oo sameeya qaarna xukuumadday ka yimaadaan sharciga hadda uu sheegay marka waxa keliya oo aysan awood u lahayn baarlamaanka inay sameeyaan waa sharciga miisaaniyadda qaranka inta kale baarlamaanku ka bilaaban karaa oo samayn kara laakiin markii laga hadlaayo sharciga la dagaalanka argagixisada wuxuu u baahan yahay xildhibaan soo dhacdooya uma baahnee khubaradii amniga gacanta ku haysay ee ka shaqaynaysay oo janno leh oo korneelo leh oo heerarka kala duwan ee darajooyinka ciidanka wata hawshaasna ku soo shaqeeyey iyo wasaaradihii amniga iyo hay-adihii amniga ayay u baahan tahay inay ka soo shaqeeyaan hawshaas soo kariyaan wixiioo karsan baarlamaanka loo keeno marka khibraddaas oo joogtada ah oo hay-adaha ammaanku leeyihiin darteed ayaan uga sugaynaa gacantooda laakiin hadday keeni waayaan maxaa imaanaya annaga laftirkeena sanadkan baarlamaanka waxaa ku soo biiray saraakiil
amni oo janano iyo korneelo heerarka kala duwan oo ciidamada leh oo aad u tiro badan oo aad taqaanaan dhammaantoodna ama badankoodba waxay ku jiraan guddiga amniga qaranka guddiga amniga ee baarlamaanka haddii xukuumaddu keeni weyso waa bilaabeynaa insha allah annagaa samaynayna aad ugu mahadsanyahay kumantigiisa su-aasha kaleete oo macawisleyda macawisley dhibaatadeeda qofkaan hadda dareemin barriyow dareema yacni wax kasta oo fawdo ku bilowda UAC maxay ku bilaabatay sharci may ku bilaabatay fawday ku bilaabatay ilaa haddana yaana soo gaarsiiyey heerka aan marayno oo maalinba cajal cusub oo noo bilaabmaayo fawdadaasaa noo bilaabmaysa aa keenaysa carabtaa waxay dhahaan waa sharixi doonaa intaan carabiga ku hadlin waxay yidhaahdaan laa yasluxu الnaasu fii fawda waa shicir laa suraata lahum walaa suraata idaa juhaaluhum saadu waxaan si kooban uga jawaabaa su-aalo kooban oo kuwa guud waa iska dhaafaya aniga i quseeyey maxaa loogu yeeri waaya lagu dhahay saraakiisha amniga markii la weeraro hotel xayaat kadib sax waaye shaqadeena way tahay laakiin xilligii hoteelka la gelaya annaga waxaan ku jirnay doorashadii guddiyada guddigii hay-adaha dowladda la xisaabtami lahaa doorashadiisaan ku jirnay diyaargarow aan ahayn diyaargarowga kadib insha allahu tacaala waa u yeeraynaa waana la isweydiinaa qaarna ma duugowdo beriyaa la isweydiin karaa saadan baa la isweydiin karaa marka shaqadeennii waaye taas way ku mahadsan tahay gabadha walaashayaa i weydiisay wiil kale wuxuu i weydiiyey ma jiraa guux ku aadan oo baarlamaanka dhexdiisa ka jira in xeerkaas la ansixiyo si kooban guux weynna wuu jiraa baahi dalbanaysana way jirtaa oo ka imaanaysa hay-adaha ammaanka iyo kuwa garsoorkaba maxaa yeelay wiilka al-shabaabka ah iyo askariga qaran hal maxkamadaa wada xukunta hal xabsina way wada galaan hal sharcina waa lagu xukumaa marka taa in laga gudbo oo sharci iyaga u gaar ah iyo maxkamada u gaar ah loo sameeyo waay ustaadkayga barakaysan macalinkayga dugsiga sare cabdiqaadir barnaamij yaa wuxuu weydiiyey su-aal dadka siyaabo badan ay u kala qaaqaateen laakiin xaliim oo guddoomiyaha ay sharaxday dareenka bulshada soomaaliyeed ee ku aadan shabaab naxaybka iyo in ay arkeen khatartiisa iyo dhibaatadiisa iyo in uu waxa uu wado aysan ahayn diin saa darteed ay ka kacdoomeen waa dhiirigelinaa waana soo dhoweynaa laakiin waxaan u jeeda waxay ahayd in arrintaas dowladdu jaanisaa taagane ay ka faa'iidayso oo la nidaamiyo adduunka waxaa ka jiro community policing shacab oo sida askar loo isticmaalayo laakiin sharci iyo nidaam ay leeyihiin tababarayna qaataan aniga waxaan ka mid ahay dadkii sameeyey jananka wuxuu ka yahay markhaati amniga waxaan ka shaqaynayaa gobolka banaadir xilligay guddoomiye muungaab janankuna oo taliyaha nabad sugidda ahaa waxaan samaynay mashruuc la yidhaha dariseyn oo min degmada ilaa waaxda ilaa laanta ilaa 10 tiriye qof ka mas-uul ah 10 guri oo shanna ay soo jeedo shanna ka soo horjeedo ayaan samaynay laakiin waxay noo lahaayeen noo mareen tababar iyo process iyo baaritaan iyo inuu deegaankaas uu ka mid yahay uu degan yahay waxyaabo badan aan marsiinay marka waa soo dhaweynaa arrintaas aadaan u mahadsantihiin jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu